madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu wax yar ka hor booqday aqalka cad si uu iskugu dayo in dib loo hagaajiyo xiriirka Yurub iyo maamulka Trump ee Mareykanka. Waxay u muuqataa wadahadallada Macron iyo Trump mid adag, iyadoo la arkay intii warbaahintu la hadlayeen ugu yaraan hal mar in Macron hadalka ka dhex galay Trump si uu u toosiyo mowqifka labada dhinac ee Ukraine. Xilli kulanka lagu arkay inay Yurub ka caraysan tahay dhaqaalaha badan ee uga baxay Ukraine, ee haddana Trump uu isku dayayo inuu ka dhigo wax lumay. Dhanka kale, wararkeena waxaa ka mid ah Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka soo horjeestay qaraarka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee lagu cambaareynayay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxa uu Mareykanku la saftay Ruushka isagoo ka soo horjeestay xulafadiisa reer galbeedka, tanoo loo qaadanayo isbeddel yaab leh kadib sanado uu dhaqaale badan Mareykanku ku bixiyay dagaalka. Haddana waxa uu la saftay dalka Ruushka. Soomaaliya waxay ku jirtaa dalalka cambaareeyay duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Wararkeena kale inaga soo gaadhay waddanka Hindiya, 12 tuulo oo hoos yimaada magaalada Burdana ee dalka Hindiya ayaa lagu waramayaa inuu ka dilaacay bidaar safmar ah oo dadka timaha ka daadinaysa. In ka badan 200 oo qof ayaa lagu soo waramayaa inay bidaar yeesheen maalmo gudahood, iyadoo weli tiraduna intaa kasii kordhiso. Dadka ayaa la kulmaya xaalad argagax oo mar kaliya timuhu ka daadanayaan, taasoo abuurtay walaac aad u badan. Dowladda Hindiya ayaa khubaro caafimaad u dirtay goobaha ay bidaartu ka dilaacday, ayaa xaqiijiyay ilaa hadda inaanay jirin wax calaamad ah oo muujinaysa xanuunka waxa keenay iyo waxa faafinaya. Waxa ilaa hadda socda dadaalada lagu ogaanayo waxa sababay bidaartan dadka sida xawliga ugu faafaysa. Intaasna waxay nooga eeg wararkeennii subaxnimo ee caalamka iyo bariga Afrika. Waxaan la socodsiinaya anigoo Salmaan Ismaaciil Nuur ah. Intaynu war noocan oo kale ku kulmi doona fi amaanillah.